لو بمين طارقة لو بمين طارقة لو بمين طارقة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhageystayaal magacaygu waa Ismaaciil Sheekh Khalifa. waxaan doonayaa inaan idin soo gudbiyo taariikh kooban oo ka hadlaysa 26 bisha Janaayo kuna beegan maalintii uu magaalada Muqdisho isaga baxay Allah u naxariistay Generaal Maxamed Siyaad Barre kadib markii jabhaddii USCda ay la wareegtay caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho. waxaan ka afeefanayaa in barnaamijkan gaarka ah ee kooban aanan uga dan lahayn in aan dad gaar ah ku waxyeeleeyo ama ku dhibaateeyo ama wax ka sheego, laakiinse ay tahay oo kaliya taariikh la soo maray isla markaana mudan in la isxasuusiyo. لو بمين طارقة لو بمين طارقة لو بمين طارقة. waxay ahayd 28 Diseembar sanadkii 1990 markii ay jabhaddii USC oo uu hogaaminayay Allah u naxariistay Generaal Maxamed Faarax Aydiid iyo saraakiil kale oo ka tirsan beelihii Hawiye ay soo galeen qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho isla markaana ay rasaas ka bilaabeen iyadoo jabhaddii SNM oo uu horboodayay Allah u naxariistay Cabdiraxmaan Maxamed Cali Cabdiraxmaan Tuur iyo saraakiil kale oo u dhashay beesha Isaaq ay la wareegeen gobolada waqooyi gaar ahaan Togdheer, Awdal iyo waqooyi galbeed, halka jabhaddii SPM oo uu horkacayay Colonel Axmed Cumar Jees iyo saraakiil beelaha absama ah ay ka soo galeen dhinaca Ceel Barde ayna soo gaareen ilaa Baydhabo iyo qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose. dagaalkii ugu xoogganaa ee xilligaasi lagula jiray maamulkii Allah u naxariistay Generaal Maxamed Siyaad Barre wuxuu ku soo ururay xilligaasi magaalada Muqdisho, halkaas oo ay ku hardamayeen ciidamo ku hayb ahaa Allah u naxariistay madaxweyne Maxamed Siyaad Barre iyo kuwii USCda. hase ahaatee ugu dambayn maanta oo kale 26 Janaayo sanadkii 1991 ayaa waxaa Muqdisho isaga cararay madaxweyne Maxamed Siyaad Barre waxaana Muqdisho la wareegay jabhaddii USCda. dad badan oo Soomaali ah ayaa xilligaasi ku farxay xukun ka rididda Maxamed Siyaad Barre iyagoo aaminsanaa in nimco iyo barwaaqo la turduuran doono. dadkaas waxaa qayb ka ahaa fanaaniinta Soomaaliyeed qaarkood oo markiiba bilaabay in ay ku luuqeeyaan heeso ay ku soo dhaweynayeen rididdii xukuumaddii Maxamed Siyaad Barre. heesahaasi lagu soo dhaweynayay arrintaasi waxaa ka mid ahaa middan soo socota oo miraha muusiga iyo codkuba uu leeyahay Allah u naxariistay fanaankii weynaa Cumar Dhuulle Cali ayna la jiibinayso Allah u naxariistay fanaanadii weyneed ee Xalima Khaliif Magool. ila dhageysta. waataan gabaahir galayuus ku joognee gudcurkii cad uu dhalay dhulkii geeriyeysnaa garab iyo rag buu helay. dhaqankeena kaasire gaalada inagu daray guuldarraystayaashii gowracay wadaadade girgiraha inagu shiday kuwii gubay dalkeene dhaqankeena kaasire gaalada inagu daray guuldarraystayaashii gowracay wadaadade girgiraha inagu shiday jabhada guuladaya
gaygii ka saaro jabhada guuladaya gaygii ka saaro gaygiina maantaba gacantaan ku haynaa jabhada guuladaya nagardaadinayo jabhada guuladaya gaygii ka saaro gaygiina maantaba gacantaan ku haynaa gulbaynu joognaa dhaha guulale gulbaynu joognaa dhaha guulale abwaan maki xaaji banaadir ayaa isna ka mid ahaa fanaaniintii heesaha ku soo dhoweeyey eryiddii xukuumaddii allaha u naxariistee jenaraal maxamed siyaad barre canjeeradii la dubo yaa cuni jiray canjeeradii la dubo yaa cuni jiray mana ka baxdo garna ma gasho mana ka baxdo garna ma gasho sambuusigii la dubo yaa cuni jiray sambuusigii la dubo yaa cuni jiray mana ka baxdo garna ma gasho mana ka baxdo garna ma gasho sidoo kale allaha u naxariistee fannaankii axmed shariif killer ayaa isna ku luuqeeyey heestan oo uu muusiga ku laray fannaanka weyn ee axmed naaji wuxuuna leeyahay soo joog ninkii laga waayo soo jiif aa laga helaa muslim dhibow dadkiisa meeleeye maalkeenu dhiibe muslim dhibow dadkiisa meeleeye muruq maalka xooggiisaay maquusahaayeen ee meedkiisa keene kaamaraayo wee kaamarayo wee kaamaraa muraadkiisa loo meeldheeraas kaamaraa muraadkiisa loo meeldheeraas kaamaraa maantii maskiinka ahayd muslun ood u baahneede maantii maskiinka ahayd muslun ood u baahneede markii maciin u galnee malab aan ku sooryeynaa madfac noogu dhaafe kaamaraayo wee kaamaraa muraadkiisa loo meeldheeraas kaamaraa muraadkiisa loo meeldheeraas kaamaraa ninkii joogi waayo ninkii joogi
waayo joogi waayo ninkii joogi waayo soo jiifa laga helaa ninkii joogi waayo soo jiifa laga helaa xukun ka tuuridii allaha u naxariistay maxamed siyaad barre lama mahadin waayo lama helin wixii la filayay oo ahaa in la helo xukuumad ka wanaagsan tii kalitaliska ahayd hase ahaatee waxa ay sheekadii isku beddeshay qabyaalad iyo beegsi hayb qabiil iyo dadka oo loo dilayay qabiilkooda dartiis taasina waxay keentay in dagaalkii uu isla markiiba yeesho weji qabyaaladeed xasuuq badan ayaa ka dhacay dalka haba ugu darnaadaan beelihii laga awoodda badnaa oo beelihii waaweynaa ay kula kaceen dil dhac iyo kufsi beelahaasi yaryar ee la dulmiyey markii dambe waxaa loo bixiyey magaca looma ooyaan looma aaraan waa kan fanaanka weyn ee axmed naaji sacad oo beelahaasi ka soo jeeda oo hees ku muujinaya dhibkii loo geystay dadkaas oo ay kow ka ahaayeen reer banaadiriga ereyada heesta waxaa ka mid ah oodii baraawo iyo odayaasha iyo hablahood ilxumay arkeene awood iyo xoog ay u sheegteen taariikhda adduunyo iloowi mayso codka axmed naaji iyo qaar ka mid ah hobolada banaadiriga aan dhegaysano odayaasha iyo hablahood ilxumay arkeene oodii baraawe iyo odayaasha iyo hablahood ilxumay arkeene awoodiyo xoog ay u sheegteene taariikhda adduunya iloobi mayse awoodiyo xoog ay u sheegteene taariikhda adduunya iloobi mayse dagaallo badan oo lagu hoobtay ayaa ka dhacay dalka kuwaas oo dhex maray beelihii hawiyaha iyo daaroodka kuwaas oo ay ugu caansanaayeen dagaaladii carbiska iyo kii araare oo dhacay sanadkii 1991 kuwaas oo dhex maray beelaha daarood iyo hawiye kii dhex maray taageerayaashii cali mahdi iyo caydiid oo ka socday muqdisho bishii November sanadkii 1991 ilaa bishii Maarso sanadkii 1992 dagaalkaas oo loo yaqaano dagaalkii afar biloodka ahaa isla markaana keenay in muqdisho laba qaybood loo kala qaybiyo khad cagaaranna la kala dhex dhigo oo ay kala maamulayeen madaxweynihii hore cali mahdi maxamed iyo allaha u naxariistay generaal maxamed faarax caydiid sidoo kale dagaaladii waaweynaa waxaa ka mid ahaa dagaalkii la magac baxay xadka iyo xawaaraha oo taageerayaashii allaha u naxariistay generaal maxamed faarax caydiid ay ku qaadeen ciidamo beeleed ku hayb ahaa allaha u naxariistay generaal maxamed siyaad barre oo soo gaaray deegaanka warmaxan oo u dhaxeeya walnaweyn iyo afgooye iyagoo xilligaasi ka faa'iideysanayay beelihii hawiye oo uu dagaal ku dhex marayay magaalada muqdisho iyagana isku mashquulsanaa dagaalkaasi xadka iyo xawaaraha oo ciidamadii daacadda u ahaa allaha u naxariistay generaal caydiid ay ku qaadeen ciidamadii taageerayay allaha u naxariistay generaal maxamed siyaad barre ayaa waxa uu ahaa kii dalka looga saaray generaal maxamed siyaad barre isagoo ka baxsanaya ciidamadii caydiidna ka tallaabay xadka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya muddo gaaban kadibna generaal maxamed siyaad barre wuxuu magangelyo siyaasadeed ka helay dalka Nigeria halkaas oo uu ku geeriyooday 2 Janaayo sanadkii 1995 dad badan oo ka soo jeeda beelihii ka hor yimid lana dagaalay xukuumaddii allaha u naxariistay generaal maxamed siyaad barre ayaa ku eedeeya in maxamed siyaad barre uu dad badan dilay uuna burburiyey dalka hase ahaatee waxaa hubanti ah iska daa inta beelahaasi ay Soomaalida kale ka dileen inta ay iyaga dhexdooda iska dileen in aanu ka dilin allaha u naxariistay generaal maxamed siyaad barre muddadii 21 sano ahayd ee uu xukunka dalka hayay iloobi mayno taariikhda
dhegaystayaal barnaamijkii gaarka ahaa ee aan ku eegayey 26 janaayo sanadkii 1991 oo ah maalintii la riday xukuumaddii allaha u naxariistay jenaraal maxamed siyaad barre intaa ayaan ku soo gabagabaynayaa magacaygu waa ismaaciil sheekh khaliifa tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo بمين طارقا بمين طارقا بمين طارقا